بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalaha Soomaalida meel kastood joogtaan waxaan idin leeyahay nabadgelyo iyo naxariis dushiina ha ahaato. Haddaba sida aad ku aragteen ciwaanka waxaan ka hadli doonaa maanta hadduu ilaahay ka raali noqdo faa'iidada ku jirta digriga gaar ahaan laa xawla walaa quwwata illaa billahi al-aliyyil cadiim. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. qof walba Soomaaliya fasilkeeda uu yaqaanaa, dadku way garanayaan macnaheeda iyo faa'iidadeeda, laakiin bini aadan haddaan nahay mar walbo waxaa fiican inaan isxasuusino cabsida ilaahay iyo faa'iidada diinta ku jirto. haddaba kelimada laa xawla walaa quwwata illaa billahi alcadiim faa'iidooyinka ay leedahay ayaa wax ka mid ah. qofka markuu dhaho kelimadaas uu ku celceliyo waxaa ilaahay uu ka qaadayaa culays walbuu haystay uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka qaadayaa. qofka wuxuu isku dhiibayaa wax la dhaho submission to Allah. qofkii ilaahay buu isku dhiibayaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay markaad isku dhiibtidna tawakkal saaratidna adduunya aakhira waad liibaanaysaa. waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso yar oo cajiib ah oo ay keentay natiijadii ahayd laa xawla walaa quwwata illaa billahi al-aliyyil cadiim. haddaba waxaa jirtay xilligii uu noolaa imaamu axmed bin xambal raximahullah baa wuxuu aaday safar buu galay. marka xaaladda way ku yara adkayd. safarkii markuu galay lacag ma haysan, dhaqaale ma haysanin, meel lagu hoteel lagu ku dego xilliyadaas iyo adiga muusan haysanin xataa meel uu ku dego. marka waxaa dhacday in masaajid uu galay. masaajidkii buu duhurkii ku tukaday, casarkiina wuu ku tukaday, maqribkiina wuu ku tukaday, cishihiina wuu ku tukaday. cishihii markuu tukaday oo dee saad ogtihiin cishaha salaada cisho markii la tukado qof walba gurigiisu aaday in yar kadib oo waa xilligii dee habeenkii. marka waxaa dhacday imaam axmed bin xambal raximahullah gurigiisu meeshii masaajidku joogay. ninkii marka xirayay masaajidka baa ninkaan la yaabay. xilligii markii la gaaray la xirayay masaajidka intuu yimid baa ku yidhi sheekhow masaajidkina xiraan rabaa fadlan xaafadii aada aad. sheekha dee muu garanaynin imaam meel u aado adiga si aan fiicnayn buu imaamka meesha uga saaray asoona ogeyn inuu yahay imaam axmed bin xambal. markuu meesha ka soo saaray soo daqiiqiyey baa wuxuu adiga maxaa la dhihi jiray u tagay nin masaajidka hortiisa masaajidkuu joogay ku gadanayay wax la dhaho sabuulka ama galleyda. marka waxaa dhacday ninkii gadanayay sabuulkaa soo dhaweeyey, uu la sheekaystay, waa iswareysteen, waa adiga la iswareystay. kadib uu ninkii sabuulka weydiiyey. intuusan weydiin baa imaam axmed bin xambal raximahullah baa weydiiyey ninka laftarkiisa wareystay. markaas wuxuu ku yidhi niyow aniga mar walba waan digriyaa, waxaan isticmaalaa digriga laa xawla walaa quwwata illaa billahi al-aliyyil cadiim. ilaahi subxaanahu wa tacaala wax walba wuu i siiyey, wax kasta duco walba wuu ii aqbalay, laakiin hal duco iisan ii aqbalin. markaasuu weydiiyey ustaadka wuxuu dhahay maxay tahay ducada. wuxuu sheegay ducada inay tahay inuu weligiis jeclaa inuu arko imaam axmed bin xambal oo uu jecel yahay inuu arko hal mar. ilaahay weydiistay wax walbo kaloo ilaahay weydiistay subxaana wa tacaala uu siiyey, laakiin wuxuu dhahay imaamkii oo ilaahay aan weydiistay ilaa hadda reedeedii imuu rumayn. markaasuu intuu qoslay imaam axmed bin xambal baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay ilaahay subxaana wa tacaala ducadaada ugu aqbalay. imaam axmed bin xambalna wuxuu kuu keenay isagoo dulaysan buu hortaada keenay. markaasuu yaabay ninkii miskiinka wadaadka digrin jiray. way isbarteen. wuxuu yidhi aniga axmed bin xambal baa nahay imaam axmed bin xambal. ninkii waa ka malaysan waaye. marka waxayna tusaysaa qisadaas cajiibka leh digriga qofka badiyo wax walbo adduun iyo aakhira uu rabo hoostiisu ilaahay keenayaa, wax walbo ilaahay uu siinayaa. hadda kahor waxaa jirtay qiso dhacday nin tabliiq ah baa wuxuu go'aansaday inuu adduunkan iyo wax uu ka joodsado ilaahay subxaana wa tacaala dartiis u joodsado oo uu aakhira ka shaqeeyo wacdiga ilaahay iyo dee uu ka shaqeeyo. marka waxaa dhacday ninkii far buu ka qaaday adduunkana waa iska daayay. tabliiq buu ku biiray. wuxuu ahaa dadka wacdiyo ilaahay kuma darnaadee adiga daaci ilaahay buu noqday. ninkii marka waxaa dhacday in ilaahay kuma darnaadee uu adduunkii dhanba soo raadsadaba
lacagtii iyo hantidii iyo wixii ninkii meeshuu imaadaba waa la jecelyaha, waa lasoo dhaweynayaa, lacagaa la siinayaa. dadkii jaceylkay u qaadeen, ilaah kuma danaa jeebabkii iyo lacagii uga buuxinayaan. wuu diiday marka. maalinkii dambe wuxuu sameeyey sidii lacagii loo siin jiray, jeebabkii uu soo xiray, jeebabkiisa dhan buu iska gugooyey jeebabkii. maalin buu wuxuu u khudbeynayey markay jameeca u khudbeynayey, meel buu joogay gathering dad badan ah. markaasaa waxaa dhacday dee meel hadda loo gelinaya jeebka ma jirto lacagta wadaad ustaadka. markaasay waxay sameeyeen kabahiisa lugihiisa kabta bay lacagtii u geliyeen. markaasuu intuu soo qaaday lacagtii wuxuu yidhi adduunku waa iska daayay, laakiin adduunkii oo dhan wuxuu yimid lugteyda hoosteeda. wallaahi haddaad adduunka faraha ka qaadid oo adduun aadan ku fakirin, ilaahi subxaana watacaala adduunyada ordayso buu lugahaada hoos keenaya insha allahu tacaala biidnillahi alkariim. haddaba faa'iidada ay leedahay laa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim oo lagu celceliyo waxay tahay wax walba oo ku haysto, culays walba oo ku haysto, ilaahi subxaana watacaala wuu kaa qaadayaa insha allah biidnillahi alkariim. weliba si qalbi ah aad u tirahdid laa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa fadliga ذكرك وأن ربنا إذن لو ذاقوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله كوا كبدن ذكري فربدن بعد إذن سوى ذا دولا كرال لنقضوا وحن إذن كل سلام كجتريا نحرستي رحمة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.